anigoo murugeysan oo isdhahay maanta maalinta kuugu dambeysay ma xasameyn oo iska soo degay tiri oo iska soo lugeynayo guriga iga gubtay aan soo dhinac maray tiri waa la hagaajinay tiri asoo la dhaqdhaqaan imaaday tiri waxaan isdhahay tiri bal u dhawaaw hadaan gurigii galay tiri oo u dhawaaday walaalayaal sababtii guriga u gubtay ayaa meeshan taal ogaada hadaan gurigii u dhawaaday tiri oo aan galay waxa laga soo saaray tiri waxaan arkay wax ilaahay og yahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك لما أنت ملك استأجوكتان كسور هذا الجنة الكيغا آمين شيقنا إن شاء الله ملك استأجوكتان سعد الله بإذن انتهي سعاد كوار اللهم آمين إلهي بما هاد إسكالي مركلنا وقدرينا وذكو كلنا وجيدنا قروح ذا بدلنا إنا صهر فريستي قدري الحمد لله إلهي iga dhigo mid joogta ah ilaahay nooga dhigo mid joogta allahumma aamin maanta waxaan idin wadaa qiso ayadana mucjisadeeda leh oo suuratul baqara iyo istighfaarta la isku daray waxyaabaha ma aragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala walaal muslimada uu ku dhaxal siiyay allahu akbar tii daraad waxba ma ahayn meeshan amura ajiib oo mucjisa meeshan ii sheeg maxaa la dhahay ka soo socdo ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu raba inuu wax sameeyo markuu raba adoonkiisa inuu laabta u qaboojiyo markuu raba adoonkiisa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo ya abadi ya amati aniga waa kula jira waa kana waa ku heliyay ilaahay wuxuu yiri qofka maartay madluumka ah markuu u baryo wuxuu yiraahdaa la ansurannaka walaw ba'da hiin بعد حين إلهي أنا قديكو دقدقت أنسك جعلنا لكن إلهي بس سبحانه وتعالى أسجأ أك وحيابها أي دعاء نوقص وضاهضه إلهي وحان كبرينا وحي نقص وضاهي وحنا فرحت قلي وأندهن يا رب الله هذا يسانو خير بدنتا إني يقص وضاهضا سيفي عنهن لهد أندهنو إلهي نوقصو ولا ليال ما أنت قصة دا إذن وضو وقصة عبرة له وقصة معجزة دا إذن وضط وعجيب وح آذن فلانين إن شاء الله قصدا noo gudu gala insha Allah intaana qisada u gudu galin waxaan rabaa inaan mahad celiyo markale walaalahayga gabdhaha igu xiran gabdhaha maaragtay waagi hore igu xirnaa gabdhaha cusub igu soo biiray kuwa hadda igu soo biiri doona aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran ilaahay anaga dhigo kubii wax iska faa'iiday allahumma aamin walaalahayga gabar walaal ah oo muslimad ah ayaa waxay ka soo sheekaysay سورة البقرة أفرمر الأخرينايو إيو ماركت استغفارت الله يا ربي والله ليالو أني استغفارت ترد أن ربوا جاري لأهي يا ترد أن ربوا جاري لأهي إلهي بان كبريا إنو إجارسية بل يسو الدعاء والله ليالو والله قف الوجر إله أوجي انتاسو خلق يا يقول حراني قف أمبا إلهي أكتيسة سر أتهلا ودعاديس الأقبلاي قف والبو إذن كمدا هيسو دعايو أنا وإذن سو دعينا إن شاء الله أنا قهرت قصوين كان سورة البقرة أفرت جير الأخرينايو أيان إذن شيء يا ماشي أن كأركض قبر ولا شكمد أيام ماركت إيسو قرتي وحي هاد مركي يجوه رئيسي أن لكل مشي قاس إلها قيراسية تي أن ماركت قبل فرنسا كنا ولا إنك قصو شيء كنا سورة البقرة صدق كجيرن استغفرت أخرنيسي مالنتي أو سورة البقرة أخرنيسي أفرت جير هرت مركز يجوه رئيسي محمد حجازي يا الله الأخ محمد حجازي يا الله إلهي سبحانه وتعالى خير هسيو قناة يوتيوب وليها ميل بدن وليها لكن أنا وحواي ميل كلام قالوا يوتيوب كان يا الله وحكو سوق لي لكن وحن رجينا ولا ليال يوم من الأيام أنا أصيد أن رب وحكو سوق لنا يو وفيديو صدوبة إن شاء الله كعاجزين ولبسنين حقيقة مركا فيديو صدوبة يسعوبات كأمرها إلهي لأك وكرهسنا إنا وحصودو وح إذا شيء عمانته إن أن كرهسنا يو إسنعي أو إسلبسنا يو وأن إسلام بسم الله يعني حبس ما كجرتها محا يعني وح كرهسنا وسمينا سا لكن وسمينا صابت وسمينا وحتى بقول جرا أساس هاي وفرح كقاضي يوتيوب لكن مرة بتوكل إنا فرح كقاضي وحرب إنا جولست إن شاء الله دي لا يرادو والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مركا الأخ محمد حجازي كسو فسيرayaan aan ka soo dhigeystay qisada waa ina idin sheega meeshan qisada ka keenay dadka carabiga yaqaan way dhigeysan karaan insha Allah way aadi karaan qisada inoo gudu galaya
gabdhaha ma aragtay waxay ka mid tahay gabdhaha oo mustaghfiraadka oo cadada badan ka akhrinaya istighfaarta ilaahay hanoo ka saanigi idinkaba insha Allah amiin oo ii sheeg suuratul baqara 4 jeer akhrinayay gabadha walaasha ah waxay sheegtay inuu hayay sixir ayay sheegtay inuu hayay kadibna walaalayaal waxay bilowday ilaahay baa wuxuu la kulmiyay al-akh Maxamed Xijaazi kadibna 4 jeer suuratul baqara akhrisay ayagu aan ku gaartay iyo istighfaar aad iyo aad u tiro badan waxaa dhacday ayadoo istighfaartii wado oo maxal dhahay oo wado ii sheeg suuratul baqara 4 jeer inay akhriso waxaa dhacay walaalayaal wallahi ma rumaysan kartiin gurigeedii oo dhan ayaa gubtay gabadhii gurigeeda ayaa gubtay oo holcay cad ka maharin guriga wax ka haray lama arko laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka badbaadiyay ayadii familkeeda waxba kuma noqonin guriga kira waaye dadka Yurub ku nool way og yihiin cilada hadii adiga ka imaatay waa in adiga bixisaa hadii guriga ay ka imaatayna qofkii guriga lahaa ama shirkada guriga lahaa bixinayso marka waxay tiri gurigi markuu gubtay oo aan noqonay tiri dad banaanka taagan oo aan yaabay tiri sidee ku dhici kartaa anigoo suuratul baqara aqrinayo oo intaas jeerna istighfaarsana in maanta gurigayga uu sidaan u gubtay laakiin waxay tiri waa farxay ilaahay baan talada u dhiibtay ilaahay uma sameeynin sidan illa ula jeedo kaleeyay ibshiri bishaarayso waxba ka mahlaawayaan waxay tiri ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartay ilaahay baan amarkaygu u dhiibtay خلاص waxay tiri wax aan meel aan aadama haystay tiri banaankan taaganahay banaanka ayaan taaganahay marka waxa dhacday ii sheeg maxaa la dhahay ninkii guriga lahaa inuu idhahay anigoo ka walwalsan maxaa kugu soo bixi doono maxaa dhici doono inuu igu yiri guriga aniga ayaa maxaa la dhahay hagaajin doono wax laga rabo ilaahay abuurta ma jirto adiga waxa dhacday tiri marka in aniga maadaama banaanka taaganahay oo door cid la taaganahay oo gurigiina uu gubtay saas uu noqday sababta guriga uu guban doono mucjiza ka dambaysa walaalayaal dhageysta insha Allah waxay dhacday 3 bari ayaa waxa la isiyay tiri hotel in oo maaragtay qol iga siiyay oo la iga bixinay 3 maalmood 3 maalmood kadibna waxa waxay tiri yaani iska dhici magaalada waxay tiri lacag ma haysto guriga aan ku kireysto gabadha meesha ay ku nooshahay walaalayaal waa Canada waxay tiri waan ku cusbahay meesha waan ku cusbahay ayay tiri kadib walaalayaal waxay dhahday marka anigoo sidii ah meelan aaday meelan cirsada aqoonini tiro aniga ilmahayga dariiqa taagan hotelkii aan tagnay hotelkii aan iska seexanay 3 bari la isiyay tiri maalintii ugu dambeysay hotelka waxay tiri horta waxay tiri ha waxa dhacday tiri anigii sidii u yaaban oo maxal dhahay oo isdhahay maxaa sameeysaa hotelka markii la isiyay tiri telefoona ii soo dhacay waa la ii soo wacay waxay tiri madrasada gabadheeda ay dhiganaysaa liga soo wacay waxa la dhahay tiri jeeg ayaa ku yaalo kaale ka soo doono bangiga jeegan kaale soo doono markaas ayaabay tiri yaa wax isiinay inta ilaahay wax iga soo diray waxa la dhahay tiri anaga dhaqankeena wuxuu yahay sharci waxa noo yaalo ardayga dhiganayo iskoolkan ama madrasadan dhiganayo markii waalidkiisa yaani familkiisa ay dhibaato la kulmaan oo kale in maxaa la dhahay aan u gurmano oo aan lacag siino marka lacagtan adiga iskale maadaama musiibo ay kugu dhacdo adiga lacagtan qaado waayaabay tiri subhanallah waxaan ira alxamdulillah ilaahay waa ogaa inuu idayacin markii horeba اللهم لك الحمد waxay tiri hotelkayga 3 maalmood waxay tiri maalintii ugu dambeysaan maray tiri walwal ay waagi igu bariyay yaani xagee aaday maanta ku egtahay maalintii yaani bari ay ku egtahay maalintii ugu dambeysay 3 bari lagu siiyay intee aadaysaa meelan aadayo waxay tiri anigoon aqoonin walaasha ayaa waxay tiri waxa soo wacday tiri hadana madrasada oo ilmahayga dhigana madrasa kamid ayaa waxay tiri gabar ka shaqeynaysa soo wacday waxay tiri ii waran sideeta ma fiican tahay kadib markii la soo wareystay waxay tiri waa ogahay inay maaragtay oo hotelka maalintii ugu dambeysay ay maanta tahay meel aadan haysanin laakiin waxaan ku hayaa bishaareyso waxaan ku hayaa waxa jira family oo Canadian jiro oo degan qasri degan jiro oo maxaa la dhahayay mar walba dadka musiibada ku dhacdo gargaarka u fidiyo sidaan oo kale guriyaha ka gubtaan oo kale ama dib ku dhaco guriyooda dib ku dhaco ayay maaragtay soo dhaweeyaan intii guryahooda waxad ay ka hagaagsanayaan oo guriga dajiyaan qayb ka dajiyaan waxay haystaan ay tiri qayb oo dhan ayaa u banaanay tiri ee dadka dajiyaan
فسبحان ملك القدوس يا سبحان الله والله غالب على أمره يا والله غالب على أمره الله أكبر الله أكبر waxay tiri walaalay waxay tiri aniga awlaadaan haystay tiri familka haday ilmaha dhibaan aniga maxaan sameeynaa tiri waxay tiri iska daa ma caleeki adiga wax dushaada maaha ilmo waa ognahay anaga inay ilmo ma aragtay xaaladda ilmaha ilmaha xaalkooda iska ognay tiri waxay yihiin ii sheeg maxaa la dhahay wax adiga culays iyo cusyaan kuma saarno waxa sameynaysaa u soo guur meeshaan imaaw si nabad geliye leh oo raaxo leh ku degnaaw waxay tiri aniga 3 bilood dhan gurigeyga qaadanay tiri 3 bilood dhan aniga ilma haysto miyay ahayn karaan tiri markaas waxay tiri miyay ahayn karaan markaas liir adiga waxba dushaada ma ahane imaaw waxay tiri aniga murugta war waa idin soo sheeka dhaafay waxa horeysay gabadha waxay tiri aniga murugeysan oo isdhahay maanta maalinta kugu dambeysay maxaa sameeyay oo iska soo degay tiri oo iska soo lugeynay guriga iga gubtay aan soo dhinac maray tiri waa la hagaajinay tiri asoo la dhaqdhaqaan imaaday tiri waxaan isdhahay tiri bal u dhawaaw hadaan gurigii galay tiri oo u dhawaaday walaalayaal sababtii guriga uu u gubtay ayaa meeshan taal ogaada hadaan gurigii u dhawaaday tiri oo aan galay waxa laga soo saaray tiri waxaan arkay wax ilaahay ogyahay asxaara laga soo saaray tiri gurigeyga waxay tiri xirsiyo balaayo wax lagu qoray wax xirxiran wax lagu aqriyay gumado waxa laga soo saaray tiri ilaahay xalkiisa ogyahay sawirka ii sheeg maxaa la dhahayay al-aqm Maxamed Xijaazi uu soo saaray sawirka yani wax laga soo saaray meesha laakiin aniga ma soo qaadanin maxaa la dhahayay waxyaabihii laga soo saaray meesha xirsiyo iyo balaayo xirxiran iyo ayaa laga soo saaray tiri يعني marka waxay tiri subxaan allah waxay tiri ileen ilaahay waxa ii sheeg guriga intaas la eg u gubay inuu i caafiyo darteeda in xargihii la igu xiray in maaragtay makaa'idtii la ii sameeyay in maaragtay lugooyadii iyo yani khiyaanadii la ii sameeyay hagartii la ii sameeyay sixirkii la ii sameeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo iga bixiyo xargahaas oo sixirkaas iga furo oo iga caafi oo noloshayda ii hagaaji ayuu gurigii oo dhan u gubtay ilaahay subxaanahu wa tacaala musabbib al-asbaab waa ilaahay siduu rabo wax u sababa siduu rabo wax u sameeya facaalu lima yuriid asaga la su'aala ilaahay waxba ma su'aalo ee wuxuu doonana waa sameeya adoonkiisana haduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u heeliyo in yansurukum allahu falaa ghaaliba lakum walaalyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala haduu noo heeliyo wallahi cid naga guuleysan karta male ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa rabbi noo heeli ilaahu rabbi raxmaan dhibaatada siniinka aan la noolnahay ilaahu rabbi raxmaan yaa rabbi اللهم اكفنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين waxay tiri waa qarac may dhahday waxay tiri alaabtii aan soo sawirtay tiri waa soo baxay markaas gabadha telefoonka markaas uu iimaana oo la soo waxa la leeyahay familkan ka hal u iimaaw qisada maadaama idin soo sheeg familka arintiisa horaan ka sii wada yaani marka waxay tiri waa baxnay tiri markaan baxnay waxaan u tagnay tiri familkiyan u tagnay familka markaan u tagnay waxay tiri waxaana la siiyay tiri qeyb oo dhan ana la siiyay tiri guri ah markaas waxay tiri waxaana la tiri ahlan wa sahlan aniga waxay tiri aniga xishoonay aniga waxay tiri isdibsanay oo dhaha ilmaha uriya yaani ku qeylinin dadkan asan yeelina markaas waxay tiri guriga nadaafadiisa ka caawina maxaan sameeyaa waa taqaana qof macruuf loo falay waa inuu asagan dhinaciisa yaani uu macruuf sameeyaa asagan oo guriga wax ka qabta hadii uu soo dhaweeyo waxay tiri gurigan maamadii Kanadiyaanka waxay tiri gurigan shaqaalo leeyahay waa waxaad Yurub ku arkeen Yurub muku arkaysi ilaa hadda waxa la qof taajir oo shaqaalo u shaqeeyo Yurub dhexdeeda ani ilaa dadka waayeelada ama sheegin waayeelka noqday oo guriga lagu xanaanay ma sheegin laakiin ilaa hadda ma arki laakiin meelahaas America iyo horta iska daa Aasiya Afrika bismillaah qofka Ilaahay wax siiyo waxa waa janno ku galay Aasiya Afrika dhexdeeda America iyo Canada iyo meelahaas iyo waxaas yaani way ka jirtaa family taajiriin ajir loo shaqeynayo Ilaahay intuu wax siiyo ziyaadi anagana Allah nasiiyo inta haysanin Allah siiyo Allahumma aamin waxay tiri gurigan shaqaala joogo oo ka shaqeynayo adiga waxba kama qabanaysid ilaa cuntada unba aniga kariyay tiri marka waxay tiri maxaa la dhahay cuntada kaliya
ayaa haddii aad iga caawinaysid ahlan wasahlan. marka waxay tiri allahu akbar, waxay tiri saan u farxay tiri maxaa yeelay aniga kuug aan ahay tiri, yacni waxaa tiri cunto kariska waa shaatiradan ku hay maasha allah. waxay tiri yaaba igu gaaraba cunto karis aniga. waxay tiri aad iyo aad aan u farxay. waxay tiri guriga farxad badan aan ku dareemay. ilmahayga waxay tiri xadiiqo weyn aan ku taala, beer weyn aan guriga ku taala tiri, meeshay igu ciyaarayaan waxaan ku dhakaali arag, yacni waxaan dareemay tiri guriga inuu gurigayga yahay kale, wax culeys ma dareemin tiri, ciriiri ma dareemin, wala anaan ciriiri laygu qabin tiri, wala anaan dhibsada yacni ciriir nafsadeeda ku qabin tiri gurigan dado inaan joogo. waxay tiri maamadii waxa dhacday tiri inaan gurigii maxay tiri cuntada ka caawiyo ay istacjabto ay yaabto intee ilaaha ii ka soo diray camal ay tiraado cuntada ashkaal wa alwaani u soo karinaysa maasha allah kaal aragan ku dhahay. waxay tiri 3 bilood ayaan waxay tiri dulsaar ku aan ku ahaayay tiri gurigaas anigoon dareemin tiri hal maalin wax dhibaato ah tiri culeys aan dareemin, anagoo isku faraxsan familki ayagoo i jecel. waxa dhamaatay tiri ugu dambeyn 3 bilood dhamaatay tiri oo gurigayga la hagaajinay, gurigii aanu shilin dhiibin waxba la ii soo raacanay tiri, gurigaygiyo ka anno maanta in la dhiso kala sababtoo ah waa dumay asaga dhan waa basbeelay, yacni ebrow noqday ka kac ma fahantay warqad camal noqday leer gurigaas dhan. gurigii waxay tiri la ii dhisay oo cusubay tiri oo wax walba cusubay tiri aan waxay tiri ku soo laabtay tiri familkiina ka soo guuray soo macsalaameen. waxay tiri ilaahay rasaqaygu ii barakay, caafimaadkaygu ii soo celiyay. waxay tiri waxa dhacday yacni waxa keenay tiri waxaas gurigayga. waxay tiri waa gabdho aan maleynay inay jecel yihiin oo aan u maleynay inaan walaalo ilaahay nahay, aan u maleynay tiri saaxiibadayda inay yihiin ayaa gurigayga waxay tiri iigu aasay tiri sixirkaas. walaakin rabbul caalamiin waa ii hiiliyayo si sixirkaas loo arko guriga dhan oo gubay tiri. kadibna wax walba noloshayda waxaan haystay wax ka khayr badan aan helay tiri. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu wax naga qaado yacawidna ilaahay wuu noo soo celinayaa. haddaan maxaa la dhahayeen dhahno cinda satma inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay subxaanahu waxaa la yidhi sabarka cinda sadmati al-uulaa yacni musiibada kuugu horeysa waaye ilaahay hadalkeena ha ka dhiga wax ilaahay subxaanahu wa tacaala raali gelinaya markii arrin nagu dhacdo. ilaahayna musiibaha naga kori anagii intii islaam wadana maxamed ah. walaalahayga arrintan waa arrin mucjizo leh oo cibro ah oo waxaan ku dhahay subxaana allahi u baahan in loo fiirsado. suuratul baqara aqrinteeda 4 jeer iyo ka badan iyo istighfaar tiro badan wallaahi billaahi dadka mucjizaadka ka soo sheekeynayaan. yacni suuratul baqara hal mar markaa aqrinaa ilaahay khayrkaas uu isiiyay istighfaar leeyahay ilaahay khayrkaas, laakiin istighfaarta markii cadad badan laga aqriyo suuratul baqara lagu daro wallaahi alcadiim qofka yacni mucjizo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tusaaya oo arrimihiisa ugu fududeynaya ilaah idinkiisa. hadduu sixir haynina maxaa la dhahay dunuubtii oo maxaa la dhahayay oo lugaha ka xirata ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhaafaya, rasiqiisu ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeynaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faqultu astaghfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سؤال واحد يا محيدا إلهي سبحانه وتعالى إذن أرجينين إلهي إذن أقبقين وإلهي إذن ما أردن بداف ويدي سنين. يا سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى نقيا المستغفرين. إلهي سبحانه وتعالى نقيا له dadka suuratul baqara oo ma aragta ilaahay dambigooda ku dhaafay, ilaahay khayr far badan uu ku siiyay, ilaahay cilmiga oo ugu furay. ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga noo fur. allahumma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma ya rab wa arina xaqa xaqan warzuqna ijtibaaca wa arina baadila baadilan warzuqna ijtinaabaha biraxmatika ya arhamar raaximiin. walaalahayga qisadii maanta intaan kusoo gabagabaynayaa oo gabadha walaasha ah oo ma aragtay kanada ku nool oo gurigeedii gubtay oo ma aragtay bifadli suurati al-baqara wa istighfar wa tawakkul ala allah wa tawbatan nasuhan ilaahay fadligeeda ma aragtay uu ku siiyay oo sixirkii uga baabi'iyay oo nolosheedina tii hore mid ka qurux badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uga dhigay. walaalahayga qisaadu macaan ma qisadan yawm min al-ayaam waxaan rajaynayaa aniga iyo dad badan oo aniga camal iga daran ama iga roon inay meesha intay soo fariistaan ay ka sheekeeyaan waxyaabaha istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyay suuratul baqara. maxaa la dhahay teed kale walaalayaalow waxa sameeynayna maadaama suuratul baqara aqrinayno dib ina isugu noqono muraajaca isku sameeyno waaye
إلهي خير هسي أخ محمد يعني محمد حجازي والله العظيم وأدعي محايل وحياة أفر بدنا كفائدة وحلقيها بين سورة البقرة آخرين استغفار الإيمان لكن برنامج بدل اسك أحد بالنا ما فهمتي وحوبها هنا هي مراجعين قسم من نفتنا ومحل ده هي وحيابها قار أفكينا كصوب حياة اسكدافنو ولا حتى والله وحيابها كفائدة وحي كم التهي يعني أنا جوح عملينا مركي دولة أما قف مضح وحلق الشيء عيو إني سندم بيهنا عملينا ويعني حلال أي نوته يعني اسكميد ما مركا قف أتقان عادي الشخصي مضح هنا مركا حق الشيء يوقف كله وحد رامي يوقف كسكال دم بينا وإنه يه لكن كان سام وقف كان اسكال وحرت اسكال الشيء سام مركا إن شاء الله أن إسئلة لنا مراقبة اسكو سمين إله إذن كيسة إلهي سبحانه وتعالى أنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله إله ربي ورحمن نفتينا طاهري إله تقوى ذا نفتينا وحوقف كلا تقوى ذا كلا طاهرين كرمال يا ربي يا رحمن يا الله يا كريم أنت واحد ظاهرسه أو واحد تقوى سيس أديك أو خير بدن يا ربي وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إله ربي أديك ولي ذا مولها هذا يا ربي نفتينا هن وقتجن الشيطان يا ربي يا رحمن إله عمل كينا هباء منثورا كدجن يا ربي يا رحمن إله عمل كينا نوح حفظي إله إخلاصا لوجهك الكريم نوغيل إله ربي ذنوبت آنا أجين أنجا وأن قلني أما أن قلينا بأن كجر مالين كست يا رب نتصي إله نوموج إله إنا كهرنا نوكس اللهم آمين قصدي ما أنت أنا كسر جبينا ولا له إن شاء الله وحرجينا يا إن أتكفى إدان وتكون ديرتان وهوري وأقرسان وحبها كعب سنين وح إيمان دونتو مالين أتكشيكين دونتيت إلهي سبحانه وتعالى سيدو فرج كوغو فري سيدو إلهي سبحانه وتعالى حرقيه كوغو حرنا كاغا فري سيدو إلهي سبحانه وتعالى كوغو هيلي وإيمان دونتا مالينا إذن كغشيكين دونا أنو انت فديو إذن كان يغسو شيكين دونتين oo aan la wadaagi doono walaalaha dhamaantood insha Allah muuqaalkan walaalayaal waxa sameeyeen share gareey hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal noqdo like na siiya waad siinaysaane ha loo badiyo mar walbo like loo badiyo wuxuu sii gaarayaa walaalo fara badan aniga hadaanan arki lahayn videogaas hadaanan arki lahayn yani videoyaal fara badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosheed ugu gargaar nolosheed Ilaahay wax ugu bedelay hadayni walaalaha soo galin lahayn aniga ma arki lahayn hadaa la sheer gareen lahayn aniga ma arki lahayn sidaas darteeda qof walba hawsha dhinaciisa ka wado aniga kaligeyga ma wada hawsha ila wada Ilaahay idinkiis insha Allah waxaan meesha ku hayn waajihaad waa tagyiir nafs ina nafteena bedelno si Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo bedelo insha Allah muuqaalka xig intaan ku kulmeen walaalayaal waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh